nimca cabdikariin timacadde oo barnaamijka ila talantaalinaysa ayaa inoogu bilaabaysa wararka caalamka kuwooda safka hore ku jira. nimca mahadsanid mawlid. maanta waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey ee colaadda yemen iyo sacuudiga. xoogaga xuutiyiinta reer yemen ee loo yaqaana ansaar allah ayaa goor dhoweyd weerar culus oo gantaalaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday waxay ku qaadeen digada magaalada maqa ee gobolka ee galbeedka wadanka yemen, sida ay sheegeen warbaahinta Yemen Today TV iyo wakaalada wararka Sabah ee yemen laga leeyahay. goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qarax oo xoogan laga maqlay galada almaqa xilli weerarka uu socday. warka ayaana waxaa intaasi ku darayaa in ka badan 20 diyaaradaha droniska lagu weeraray dekada, halka gantaal lagu bartilmaameedsaday xarun tababar oo ku taala deegaanka qatal ee dalkaasi yemen. ciidamada dowladda yemen ayaa dhankooda sheegay in difaacyada ciidamadu ay soo rideen qaar ka mid ah diyaaradaha droniska ee dul hehaabayay magaalada. xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay beegsadeen deegaanada jabal al-naar iyo jasiiradda zakhar ee ku dhow magaalada al-maqa. maamulaha dekadaas ee magaalada ku taal ayaa waxa uu sheegayaa in qaar ka mid ah shaqaalaha dekada ay ku dhaawacmeen weerarka, balse ma aanu sheegin tiradooda. waxaa sidoo kale uu sheegay in dronis lagu weeraray guryaha qaar ka mid ah shaqaalaha dekada. geesta kalena hafayeenka milatariga ee kooxda xuutiyiinta jenaraal yaxya sariic ayaa waxa uu xaqiijiyey weerarka, isagoo sheegay inay gantaallo kuwa balastiga ah iyo diyaarado dronis ku bartilmaameedsadeen ciidamo iyo baqaaro hub lagu kaydiyo. dekada almaqa ayaa leh muhiimad istiraatiiji ah maadaama ay ku dhowdahay marinbiyoodka baabalmandab oo ka mid ah marinada ganacsiga ee badda ee ugu muhiimsan dunida. goor sii horreysay oo maanta ah, xuutiyiinta ayaa sheegay inay diyaarad aan duuliya lahayn ku weerareen warshadda sifaynta shidaalka ee ay leedahay shirkadda sacuudiga ee aramco ee ku taal magaalada jizan ee koonfurta galbeed ee dalka sacuudiga. afhayeenka militariga xuutiyiinta jenaraal yaxya sariic ayaa daboolka ka qaaday in weerarku si sax u haleelay bartilmaameedkiisii, isagoo ku tilmaamay jawaab ay ka bixiyeen diyaaradaha sacuudiga oo sida uu sheegay soo galay hawada gobolada sacda iyo sidoo kale haja. wasaaradda tamarta ee sacuudi carabiya ayaa xaqiijisay in dab uu ka kacay mid ka mid ah xarumaha sifaynta shidaalka ee shirkadda aramco ee jizan, islamarkaana in la damiyey ayaa la xaqiijiyey, waxaana la sheegay in wax khasaare ah uusan ka dhalanin dabkaasi. wasaaraddu ma aysan sheegin sababta dabka inuu ka kaco ka dambeysay. weerarkan ayaana noqonaya midkii labaad muddo ku dhow 2 toddobaad ah oo xuutiyiintu ay sheegtaan inay ku bartilmaameedsadeen xarumaha aramco ee jizan kadib weerar ay sheegeen inay fuliyeen 25kii bishii hore ee julaay ayna weerartay. xiisada ka taagan badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa sii xoogeysatay tan iyo bilowgii bishii hore ee julaay, iyadoo xuutiyiintuna ay ku dhawaaqeen inay ballaariyeen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta lala xiriirinayo boqortooyada sacuudiga. dhinaca kale, sacuudiga ayaa bishii hore waxa uu sheegay in mid ka mid ah maraakiibtiisa la weeraray, waxaana uu duqeeyey fariisimo xuutiyiinta ku leeyihiin gobolka xudayda, kuwaasi oo sacuudiga uu sheegayo in loo adeegsanayay khatargelinta isu socodka maraakiibta. sacuudiga ayaa sidoo kale dhowaan ku dhawaaqay samaynta isbahaysi difaaca dhanka badda oo loogu talagalay ilaalinta xorriyadda isu socodka maraakiibta gooshaysa marin biyoodka baab almandab. isbahaysigan waxaa xubno ka ah dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin maraykanka, yemen, kuwait, cumaan, jordan, suudaan, morocco, soomaaliya, jabuuti, maldives, bangaladesh iyo sidoo kale new zealand. waa hagaaga, bal markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyey xiisadaha kale ee colaadeed ee bariga dhexe ka jira. taliyaha ciidamada dhulka ee militariga Iiraan sareeye guuto Cali Janshahi ayaa sheegay in ciidamada Iiraan ay si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo qataraha cadawga, isla markaana ay ku jiraan heegan dagaal oo buuxa.
jahan shaahi ayaa carabka ku adkeeyey in Iiraan ay jawaab adag oo wax ku ool ah ka bixin doonto tallaabo kasta oo cadowga uu ku qaado dalka. cali jahan shaahi ayaa sidoo kale digniin waxa uu diray ciidamada Mareykanka isagoo sheegaya in Iiraan aysan ogolaan doonin in askari Amerikaan ah uu soo galo dhulkeeda. askari kasta oo Mareykan ah oo cag soo dhiga dhulkeena si adag ayaan uga hortagi doonaa ayuu yiri taliyuhu. taliyaha ayaa intaasi ku daray in ciidamada Iiraan ay si joogto ah ula socdaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo qataraha jira isla markaasna ay si buuxda ugu diyaarsan yihiin xaalad kasta oo dagaal. wararka Iiraan qusaya aynu ku sii soconay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in Tehran iyo Mareykanku ay fariimo isdhaafsanayaan iyadoo loo sii marayo dhinacyada dhexdhexaadinta balse aanu xilligan jirin wadahadal toos ah oo u dhexeeya labadan dhinac. Araghchi ayaa xusay in fariimaha la isku dhaafsanayo aan lagu tilmaami karin wadaxaajood rasmi ah isagoo xusay in dhexdhexaadiyaashu ay ka shaqaynayaan sidii loo heli lahaa jawi ku habboon dib u bilaabidda wadahadallada. aragtidayada wadahadallada dib looma bilaabi karo ilaa Mareykanku joojiyo jebinta heshiiska isafgaradka uu ka noqdo tallaabadaasi ayuu hadalkiisa ku daray Araghchi. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in wadahadallada Iiraan iyo saldanada Cumaan ee ku saabsan dejinta marin badeed oo cusub oo laga sameeyo marin biyoodka Hormuz ay si wanaagsan u socdaan isla markaasna ay marayaan heerarkoodii ugu dambeeyay. Waxa ku nuuxnuuxsaday in marinadii hore ee maraakiibta ee Hormuz lagu bedeli doono marino cusub oo qayb ka ah wadahadallada ay Iiraan la leedahay saldanada Cumaan. waxaana uu tilmaamay in qobaradu xilligan ay ka shaqaynayaan qariiradaha la xiriira marinadan cusub. Araghchi ayaa caddeeyey in heshiis lala gaara saldanada Cumaan aanu macnihiisu ahayn in dib loo furayo marin biyoodka Hormuz. waa tahay haatana war weyn oo Israel ka soo baxay. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu qiray ama sheegay in Israel ay diiday qorshaha 15 qodob ka kooban ee uu soo bandhigay waxa loogu yeero golaha nabadda ee ku saabsan hubka dhigista kooxda Hamas ee reer Gaza isagoo meesha ka saaray wararka sheegaya in Israel ay aqbashay qorshaha Mareykanku uu taageerayo. waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo Israel way diiday dukumentiga 15 qodob ka kooban ayuu Netanyahu ka sheegay bilowgii shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada Israel ee maanta qabsoomay. golaha nabadda ee uu madax u yahay Trump ayaa isku dayaya inuu horey u dhaqaajiyo qorshihiisa ku saabsan Gaza dagaalka kadib kaasi oo Hamas ay aqbashay. Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israel aysan ka bixi doonin Gaza ilaa Hamas si buuxda hubka looga dhigo isagoo carabka ku adkeeyey in hubka dhigistu ay tahay inay ku jirto dhammaan hubka culus iyo kuwa fudud oo laga qaadayo kooxda reer Gaza. golaha ammaanka Israa'iil ayaa goor sii horeysay waxa uu ogolaaday in ciidamada caalamiga ee xasilintu ay galaan Gaza si ay hubka uga dhigaan Hamas una maamulaan dhulkaasi. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay Mareykanka kala hadli doonto tabashooyinkeeda ay ka qabto qorshahan isla markaasna ciidamada Israa'iil ay sii wadi doonaan ka hortagga sida hadalka uu yiri qataraha amni. waxaa sidoo kale uu ku celiyey inuusan aqbali doonin dhismaha dowlad Falastiini ah oo laga yagleelo Gaza iyo weliba daanta galbeed ee la haysto. aynu markan xubinta falanqaynta ee barnaamijka ugu dambeysay xagga Mawlid u yacano. Mawlid intaynan u gudbin arrimaha ku saabsan xiisadda Iiraan iyo Mareykanka iyo waxyaabaha ka soo cusboonaaday bal aynu u yacano xagga go'aanka culus ee Israel iyo Netanyahu ka soo yeeray ee ku aadan inaysan aqbalaynin oo aysan ogolayn qorshaha Trump ee Gaza ku saabsan. bal muxuu ka macnayahay go'aankan? nimca horta warkan waa war aad u weyn. saacadihii u dambeeyey wakaaladaha wararka iyo telefishinada iyo raadiyaasha iyo sidoo kale baraha bulshada ayuu saaran yahay. waana war weyn oo runtii isbedel weyn ku keeni kara xiriirka Mareykanka iyo Israel inkastoo la aaminsan yahay in mar walba ulya diirkeed ay yihiin Mareykanka iyo Israel laakiin qorshihii dhammaa ee madaxweynaha Mareykanka uu ka shaqeynayay
ayaa waxa la aaminsan yahay hadda in Netanyahu laad uu ku dhuftay sida qobrada ay ku macnaynayso. waxaan soo xiganaynaa khabiirka weyn Marwan Bishara oo Falastiini ah telefishinka Al Jazeera ka mid ah qobrada sida weyn arrimahan uga faalloota. wuxuu soo xigtay isaga quddiisa wasiirkii hore ama xogayihii hore amuuraha dibadda ee waddanka Mareykanka Henry Kissinger. wuxuu leeyahay Israa'iil ma leh istiraatiijiyad siyaasadeed oo dhanka dibadda ah, laakiin waxay leedahay siyaasad gudaha ah. maxaa loola jeedaa marka? Marwan Bishara wuxuu ku macnaynayaa go'aankan ka soo baxay Netanyahu inuu la xiriiro doorashada Israa'iil ee dhici doonta, si Netanyahu loogu aqoonsado nin balaaye ka dhacday oo haliyey ah oo isla markaasna isku taagi kara madaxweynaha Mareykanka, diidi kara go'aankan Trump ka soo baxay in gudaha Israa'iil loo aqoonsado nin haliyey ah oo ka hor imaan kara madaxweynaha Mareykanka, isla markaasna diidi kara waxa uu doonayo. waayo waynu ognahay Israa'iil muhiimad weyn ayay u leedahay marayka Gaza. Marwan Bishara wuxuu kaloo soo xiganayaa hadallo uu hadda ka hor ku dooday Netanyahu dhowr mar. waxaa ka mid ah Rafah oo maamulkii Joe Biden ay diidanayeen in la weeraro, halkaasi oo xilligaasi markii duulaanka la qaadayay ay ku sugnaayeen dad ka badan 1 milyan oo qof, laakiin Netanyahu uu yiri waan duulaan baan ku qaadaynaa. wuxuuna qiil ka dhigtay xilliyadaasi dilkii Yahya Sinwar iyo hogaamiyaal badan iyo Rafah in la burburiyey ayuu ku doodayaa. wuxuu kaloo ku doodayaa Netanyahu sida Marwan Bishara uu soo xiganayo Lubnaan ayadoo leeyahay ku duulin ka joog koonfurta Lubnaan oo wadamada reer galbeedka ay kala hadlayaan arrintan, si gaar ah Faransiiska iyo midowga Yurub ayuu duulaan ku qaaday. waxaana uu leeyahay si hadalka u dhigayo Xisbullah awoodeeda waan weeqnay. Iiraan ayaa sidoo kale ka mid ah oo Netanyahu ayadoo leeyahay dagaalkan gobolka bariga dhexe wuxuu keeni karaa dhibaato culus. dhibaatadan maanta taagan ayaa laga digay, laakiin wuu diiday. wuxuuna qiil ka dhiganayaa Mareykanka iyo inagu waxaynu dib u dhignay ugu yaraan 10-20 sano si hadalka ay u dhigahayaan Iiraan inay samaysato hub nuclear. marka wuxuu leeyahay arrintan waa arrin doorashada Israa'iil saameynaysa. doorashada waxay dhici doontaa 27ka bisha Oktoobar, hal bil ayaana ka dhiman, ololihii ayaa lagu jiraa. codbixinta iyo saadaasha hadda la bixinaya dhammaantood waxay sheegaysaa Netanyahu in uu lumin doono aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. baarlamaanka Israa'iil wuxuu ka kooban yahay 120 kursi. cidda u baahan inay dowlad soo dhistaa waa inay heshaa 61 kursi ugu yaraan. xisbiga Likud ee Netanyahu uu hogaamiyo la filmaayo wax ka badan 24 ilaa 20 kursi inuu helo. haddii uu isku daro isbahaysiga iyo xisbiyada kale ee mayalka adag, markaas la filmaayo inay dhaafi karaan dhowr iyo 50. marka waxa weeye kuraastooda waxba ka dhimanaanaya. marka waxaa soo baxay sidoo kale hogaamiyaal Netanyahu aad iyo aad uga hor yimid oo dhanka doorashada. waxaa ka mid ah Gadi Eisenkot oo kale. waxaa kaloo la tilmaami karaa Avigdor Lieberman oo isaga quddiisa haddaan ka mid ah ragga ugu cadcad. Naftali Bennett oo kale ayaa ka mid ah. marka waxaa leeyahay hogaamiyaasha mucaaradka ayaa hadda isku biirbiiraya. ilaa 10 kursina carabta ayaa leh. haddii carabtu ay raacaan dhankan mucaaradka si buuxda ayay ugu guuleysan karaan, walow xisbiyada oo dhan iska ilaalinayaan carabta, sababtoo ah waxay weyn karaan qoryaha mayalka adag codadkooda. marka arrintu waxay ku soo ururaysaa arrin doorashada Israa'iil saameynaysa. laakiin mushkiladda jirta ayaa waxay tahay Netanyahu xilligan muxuu go'aan ku qaatay marka laga reebo doorashada. waxay noqon kartaa arrin weyn. waxaa dhici karta inuu fahamsan yahay Trump dagaalka Iiraan inuu soo gabagabeynayo, isla markaasna Iiraan uu la heshiinayo, si marka uu u qaldo ama sida hadalka loo dhigayo uu u carqaladeeyo qorshaha Trump ee gobolka bariga dhexe. ayuu doonayaa marka inuu soo celiyo arrintii marayka Gaza. qobarada Israa'iiliinta xitaa qaar ka mid ah ayaa sida hadalka u dhigaya. waxaana ka mid ah xitaa duulaan inuu dib u bilaabo, si markaasi qorshihii Trump uu watay oo dhan uu u noqdaa mid meesha ka baxa. sababtana waxay tahay markaasi inuu yiraahdo haddii aad diidid Iiraan in isla weerarno, Iiraan meel la saaro, dagaalka la sii wado, aniguna waxaan bilaabi doonaa xaaladda inaan sii qaso oo ilaa iyo Gaza ilaa iyo Lubnaan dabka aan geliyo. taasoo kale marka dad badan baa ku fasiraya arrintan sida qobrada ay sheegayso. marka xaaladdu waxay u muuqataa arrin adag. Trumpna jawaabta uu qaadan karaa aad bay u kooban tahay.
waayo Trump saameyn marka laga hadlayo dadka la shaqeeya Trump Netanyahu saameyn badan buu ku leeyahay qoryahan u ololeeya Israa'iil ee IPAC la yiraahdo sanadka taageero badan bay ku leedahay Israa'iil Kongareeska saameyn badan bay ku leedahay afayeenka aqalka Kongareeska Mareykanka hadda ka hor wuxuu yiri waajib diiniya weeye Israa'iil in la taageera marka halkaas maraysa arintu dabcan arintan maantay ka soo yeertay Netanyahuna waxay qiil siinaysaa xubno badan oo ka mid ah dadkii taageerayay Trump oo markii horena aad u dhacsanaa siyaasaddiisa laakiin markii dambe ka hor yimid inay leeyihiin waxaynu sheegayna way caddaatay Netanyahu waxna maqli maayo mana xukumi kartid Israa'iilna taageerada ugu badan waxay ka heshaa Mareykanka la'aantiis maalin ma jiri karta ayaa la yiraahdaa Israa'iil marka arrintu waxay u muuqataa arrin aad iyo aad u adag waxa la ogaan doonaa madaxweynaha Mareykanka go'aanka uu qaadan doono laakiin ma noqon doono go'aankaasi go'aan inuu noqonayo Israa'iil ka hor imaanaya waa laga yaabaa Netanyahu laftigiisa inuu fahamsan yahay Trump inuu rabo dhiiqa inuu geliyo arrimaha Lubnaan arrimaha Gaza si doorashada meesha looga guuleysto meeshana uga baxo arrintaas inuu fahamsan yahay baa laga yaabaa Netanyahu laftigiisa oo markaasi jar u la ciyaarayo Trump laftigiisa waayahay go'aanka Trump aynu sii daba soconay Trump muxuu sameyn doonaa Mawlid ma uu ku raaci doonaa oo qorshe halkaas uu ku joojin doonaa hirgelintiisa mise jawaab kale ayuu ka bixin doonaa horta xujo adag ayaa iminka soo saartay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xujadii Iiraan ka haysatay mid ka daran ba hadda qabsatay marka maxay noqon doontaa indhaha inuu shito oo yiraahdo maya heshiiskan Israa'iil way aqbashay arrinta la yaab kale waxa weeye golaha amniga Israa'iil oo Netanyahu shir gudoominayo ayaa maalmo ka hor waxay ansixiyeen qorshahan 15 qodob ka kooban Hamas waxay taagan tahay anagu diyaar baan nahay hubka inaan dhigno laakiin Israa'iil ha laga saaro meesha saaki wararkayga waxa ku jiray war sheegaya Israa'iil diyaar inay u tahay inay ka baxdo Mareykanka Gaza oo ay ku wareejiso ciidamada xasilinta caalamiga laakiin warkan waa wax cusub waa wax saacadihii ugu dambeeyay soo baxay waxay u muuqataa arrintu inay tahay arrin la xiriirta Iiraan oo Netanyahu uu fahmay Mareykanku inuu rabo inuu Iiraan la heshiiyo tanaasulaad badan loo sameeyo Iiraan ay sii jirto haddii ay noqon lahayd awooddeeda xagga ciidamada haddii ay noqon lahayd xagga gantaarada iska caabinta ay taageerayso Iiraan oo awooddeedii leh oo meesha fadhida oo aaminsan inay guuleysatay ayuu Netanyahu wuxuu doonayaa markaasi si kastoo Trump ku carqaladeyn karo inuu ku carqaladeeyo arrintu marka arrin sahlan ma ahan madaxweynaha Mareykanka go'aankiisa muxuu noqon doonaa ma ogin Trump ni la saadaalin kara ma ahan qubarada iyo dadka yaqaan iyo saxaafadda waxa laga filan kara lama yaqaan iyo waxa uu sameyn doono inkastoo laakiin aan la filayn inuu maraydaha ka dalacdo Netanyahu waayahay aynu halkaasi uga talaabno arrintaas ku saabsan go'aanka cusub ee Israa'iil ka soo baxay Netanyahu oo diidmo kala hor yimid go'aanka ama qorshaha Trump uu waday ee ku saabsan Gaza dhinaca kale aynu u weecanno arrimaha quseeya xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka dhankaasi maxaa ka cusub Mawlid arrimihii ugu dambeeyay ka soo kordhaysay xiisaddan maxay yihiin horta intaynu barnaamijka ku jirnay war weyn ayaa Iiraan ka soo kordhay warbaahinta Iiraan iyo taliyaha ciidanka Baasiij ayaa waxay sheegeen in dhawaan la faafin doono muuqaallo iyo sawirro hogaamiyaha cusub ee Iiraan Mujtaba Khamenei isagoo banaanka jooga dad la kulmaya isagoo dad la shiraya meel guri ama xafiis iyo sidoo kale macluumaad fara badan oo la xiriira hogaamiyaha sare ma ogin xilliga la faafin doona arrintaasi laakiin waa war weyn warkan waxay kaloo ku soo aadaysaa arrintan iyadoo madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian goordhawita uu sheegay inuu la kulmay hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei arrintan waa arrin weyn marka dhinac laga hadlayo waayo ilya baar lama saarin hogaamiyaha sare tan iyo bishii March markii lagu bedelay aabihii Ali Khamenei sidoo kale waxay arrintan ku soo aadaysaa xilli laga sugayo go'aanka ugu dambeeya Mujtaba Khamenei inuu jeediyo horta warkan waa war hadda soo dhacay dhinaca kale markaynu eegno wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iiraan wuxuu sheegayaa in hadda arrinta ay joogto farsamada oo laga wada hadlayo qariiradii iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiiska walow laakiin hanjabaado culculus ay ka soo yeerayaan dhanka Iiraan waxaana moodaa Mareykanku hadda inuu gaabiyey hanjabaadihii iyo hadaladii kulkulala iyo siiqadii Trump uu ka hadli jiray ee xanafta lahayd dhanka Iiraan baad moodaa markan
in arrimuhu ay yihiin arrimo aad adag dabcan waynu tabinay sidoo kale ilaa 7 qodob ay soo bandhigeen golaha amniga qaranka ee Iiraan oo shuruudo adag ah Mareykankana ku noqonaya in la sakiimo la laqo xaaladda marka way adkaanaysaa sida muuqata Iiraan waxaad moodaa inay isku arkayso gacanta sare inay leedahay ilaa iyo hadda kubaddu waxay agtaala Iiraaniyiinta dhanka ay doonayaan inay u laadaan ayay noqon kartaa ma heshiis mase colaad waynu arki doonaa markaa waa hagaag aad baad u mahadsantahay mawlid daawadayaashuna waa ay mahadsan yihiin intaas ayaan guud ahaanba kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wararka maanta uu si wada jira mawlid xaaji cabdi nimcati macdi halkan idinkaga aqrinayeen si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnaynina nagu soo biira sidoo kale waxaan idin xasuusinaynaa inaad ku soo biirtaan baraha bulshada ee kala duwan ee telefishinka R oo aad ka heli kartaan ama aad ka heli doontaan macluumaadyo xiiso badan oo taariikhda u horeysay sidoo kale barnaamijyo ku saabsan islaamka ee nolosha tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono kulan mid kala cayna nabad